السلام عليكم asxaabta habeen wanaagsan ku soo wada ciyaaraha waxaan soo qaadan doonaa warbixinada ugu dambeeyay habeenka ciyaaraha dhacaya iyo sidoo kale waxaan eegi doonaa warbixinada ugu dambeeyay finalka Arsenal iyo Manchester City ninkii Pep Guardiola galabta waa la galay aad buuna u qiray kooxda Arsenal iyo awoodeeda waxaan eegi doonaa warbixinada ugu dambeeyay Barcelona ilaa iyo Real Madrid iyo arrimo kale oo weyn ku saabsan guud ahaan baan eegi doonaa ciyaaraha asxaabtay subscribe kana saara ku channelka su'aal ku jiray share laagtan iska dirna saxad kale ciyaaru jecel bal barnaamijkeenu gaarsiina Viga Mamus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 way salaam saxaabtay maqaarkii baan eegi doonaa habeenka Man United iyo waxaabay hoos baxday ka war iyo Bournemouth baa ciyaaraya caawe ya dadka kaliya maqaarkooda lagu raaxaysan karo socda mucaarado soo daawada Bruno macaantiisi qurxiisa soo daawada ya raga kaliya ee maqaarkooda la huwa maqaar qurux badan waa nooca maqaar aan ugu jeclahay waa Bruno ujeed la waa sasal weerar hal koox baan yani saasoo kale u ciyaari jirtay mar walba Liverpool bay ahayd waa daqiiqada koowaad waxa laga dhigaa daqiiqada shanaad saas baan jeclay aniga maala yani dhan ma jeclay aniga iyo Bruno lagu dheelo iyo Bruno oo la fiirsan karin dhima ba jeclay aniga wallahi saas markaan kala hadla aniga ana maqaar oo macna dar ma jeclay waxaan jeclahay maqaar ujeeda markaad fadhiisid aad leedahay maxay oo macnaha telefoonka aadan hal war xataa qori karnaa jecel aniga shimay goolka tagayaan jecel aniga baan waxaan tan wax waa loo caajisi 2000 iyo waxa la mar 26 Barcelona Bruno-geeda xawaara ku jiro de Barcelona Bruno-geeda maanta saan ma iska xadiya soo hor la socdaa saas la socdaa marka nimankan waa taamaanada in qirxan Bruno-gooda nimankan Bruno gaaray mala waana timaanada ku maqlaysan warbixin Ingiriiska laga qoray oo warbaahinta qoreen yiraahdeen kooxda ugu Bruno-ga fiican ugu weerarka fiican England Manchester United wayaan tii lagu tilmaamay marka wax weeyaan caawa shanta habeen may soo shan saac ay soo galaysaa wixii Man United ay siinba Man United cumadeeda tuurad maqlaysiin waa duuyde waa Man United oo Chelsea iyo oo World Champions iyo Champions oo England gadaal iska marisay waa oo sanadkan soo qabal laayiin oo Liverpool aduu waa taasde Arbanonin ala buksana United ya haduu marka kaarig mar hore imaan lahaa xataa hawshan mar hore ayayba Premier League gaari lahaydba iska jira City caawar City hostel ka soo galaade baan mood hadii caawa la soo dhaaf waa markay caawa Man City gambarada dhigi lahayd ilaa nimanka Bruno wuxuu inuu taqaanaa ciyaartooy inuu isdajiyo yiri macaa ma haynan ku fikirno war kaliya Manchester City وين كوفي كرنا وربسيش فعنا نقول ما يسنو معناها مانشستر سيتي لو فكروا هوريالك هل لو يسين بوسكيني الله هايستا أنا مركز محمد بركة يجي برونا السعودي يا تم يكون صعب على المرة يتضبط جوري الجواب معناها مع أوجا أنا عيارتنا تم البصع يفرتن دماني سن أوجا هذا قرون كحتى تقول تم البصع دان تقول صدق دقوا وكيلة صدق دقوا وفلان تحي ساس مروزة يا أوجا ما كان روح وسيد دم بيسا marka alcamum kulkii ugu dambeeyay labadan ciyaareen 4 bay ku dhumaatay ka war maqaara ka dhacay waliba tan markuu ninka yimaaday kooxda Michael Carrick ma jirto koox Premier League oo inta dhibcaay yeeshay Manchester United heshay ma jirto yaani Premier League dilka soo bilaabay ilaa 13 January United baa la sii lahaa horyaalka ya marka taasu waa taa Pep Guardiola ayaa wax laga weydiiyay finalka Arsenal ay la ciyaarayaan waxa niyo Pep Guardiola adiga iyo hadda xiriirka Arsenal kala dhaxeeya ninka saaxiibka ah Michael Arteta ma fiicnaan malaynay leeyin maxaa yeelay 5 ilaa 6 sano kala maqantiin xataa ciyaartooyda qaar markasta Arsenal ku dhaga hadlaan oo ay yiraahdaan Benoni oo Dark Art bay ciyaaraan oo Benoni oo macnaha oo adiga gamow iyo macnaha tuuganimo iyo xariifnimo ay bay ciyaaraan raganimo kuma ciyaaraan iyo waa ay tamaan ilmaha waa ay tamaan Arsenal bay caayaan horta xiraan afkii wiliga kama qashan anigoo Arsenal iyo wax ma yiraahdeen mid kale waxa uu yiri dagaal aad abuuraysiin baa hani hadda Arteta anaga dhax kicinaysiin ciyaarta final koor macnaha ma ka wadi meesha ciyaar oo musaarac ma balminaysiin John Cena iyo waxa isku balminaysiin iyo macnaha kuwa musaaracada isku balminaysiin amlo kala jeeda macnaha ya ani hadda Arteta madax iska gelinaysiin yiri macnaha waa sax yiri shay 6 sano kala maqanahay yani misweel ma joogno laakiin يعني waxay leeyihiin xiriirkiina completely hadda waa ka dumiyaa la kiyoora leey macnaha ciyaartooyda way caayaan Arsenal iyo Arteta way caayaan maxaa leedahay كل وحيري بيب غارديولا يعني إذا ما ده هي أنا هذا وقت أنا هيا ولندن كأذي كره هو أن ما تخنا كل صوت عنتين كره أرتيتا أنا أصلا وقت إيما هاي أفر ترتلو بجلد وارس قلد ماشى ده أساب أفر نيجا أساب يقول بدن بق معنا والس دورة ماشى معنا أنا أفرتي ما هيو أنا أفر لي ما بحيور والي سوق جبا سد حال علي كاني كوي كلا إيش إنه يراد تهاي هذيك كلا دروا دات كلا قاعدة معنا وحور نيجا هول دن نيجا دنا كذا عدوري ونيجا وقت إيمه ليو أصلا أنا من لندن ما أدي كرا
iska badaa asigoo afar koob u tartamayo ma awoodi karin Manchester yimaado marka cunto ay kama gaarno yiri macna ninka ka markaas la ku xalay bal ka warna laga Arsenal Arteta ninku reer Guardiola nimankaas awoodooda ka war hada xir nimankaas ka hadlaan malaha nimankaas waa awooda Yurub wayaan iyo awooda Premier League way macna qirid Bruni maqaar waa qirid ya maqaar waa qirid wasabtan saab ku dhahay war labadan koox kooxdana awood badan aniga waxaan u soo joogay City Arsenal oo ciyaaraya oo City aan ogahay inay shan ka kicinayso Arsenal la tumay Arsenal hadda ma ogtiin City oo Arsenal ka badisay xataa waqti dheer ugu dambeysay Manchester City inay Arsenal ka badiso Premier League easy man marka Bruno waa suuqyada marka dhahay macnaha marka wataa idin dhihi jiray adduunyadu maanta waxa la maray qof ka fiican loo qiro maxamed qarbiga ku dhahay Arsenal iyo Manchester City laga xoog badan yahay awood ahaan itaal ahaan koox ahaan power ku jira yaa wuxuu ka hadlaa wuxuu soo qad taqaan xuri hada Arsenal arkaysan bursiisa kan Jamil League arkaysan ciyaaraha dhan way badiyeen hal daro marka laga reebo Leverkusen waa arkaysan horyaalka hawsha ka wadaan yaa wax kale oo Arsenal marka wuxuu ku tilmaamay Arsenal inay tahay wuxuu yiri todobaadkan wayna hurdada ka kacnaa waxaan la tartamayna inuu kooxda ugu fiican England waxaan la tartamayna inuu kooxda ugu fiican Europe ayaan la tartamayna nimankaas zaid uu ku rumcna marka ninkan waa u qiri kooxda Arsenal waa laga yaabaa inaad dhahaysaan waa ciyaar maskaxeed way noqon kartaa laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa inuu u qiraya Arsenal ya marka wuxuu sheegay inuu aad ula dhacay bandhigii kooxda Arsenal iyo awoodeeda sanadkan wuu qiri Arteta Pep Guardiola wuxuu ku tilmaamay awoodda ayuu ku tilmaamay iminka taas waa ta arinta ku aadan Man City ganaaxeedii kadib markii todobaadkan Chelsea ganaax khafiif la siiyay waxa la saadaalinayaa in Man City ganaax weyn aan lagu dhufan doonin oo dhibco badan in laga jariyo Serie in loo celin doono ganaaxas wuu dheeraaday arintaas sugitaankeeda way dheeraatay oo kiiska 115 kiis way u dheeraaday marka dad badan waxay leeyihiin okay Man City ama si xun loo ganaaxi doonaa laakiin todobaadka kan niman khubro ah waxay leeyihiin waa good news oo Man City helayso kadib markii Chelsea oo isdawmareen samaysay ganaax dhibco aan lagu samayn kaliya lacag lagu ganaaxay marka hadii macnaha City lagu helo arintan lagu haysto macnaha waxa la saadaalinayaa inaan Serie B loo celin doonin yaa la saadaalinayaa Chelsea inkastoo ganaaxas ganaax lacageed kii ugu weynaa Premier League uu yahay haddana Chelsea waa iska awoodi kartaa wax soo bixin karaan waxa lagu haystay kiis loo kutmay oo ahaa in lacagaha ay qarinayeen oo ay wakiilada iyo ay siinayeen ciyaartooy ku soo jiidanayeen ay qarinayeen hoos ka bixinayeen soo hadii lacagaha waxa la rabaa in la sheego si waxa la ogaanaa kooxda City inta soo gashay inta ka baxday markaas xeerkii qabana hadii la kala qariyo xeerka qofkii ma qaban karo yaani macnaha waa waxba la qariyay macnaha ma ogaan karto qofkan wuxuu bixiyo inuu intaanu bixin marka waana wax hadda aad loo ilaaliyo marka kiiskii markii lagu helay ganaaxas baa la siiyay waqtigii Abramovich bay ahayd marka 10 milyan baa lagu ganaaxay iyo hal sano oo suuqa laga ganaaxi doono hadii mar kale ay midaan soo celiyaan iyo in hadda academic ay la soo siixan karin 9 bilood soo aadan ciyaaryahanno marka quburka weyn Stephen Porson ninka la yiraahdo wuxuu yiri Chelsea ciqaabteedii easy bay ahayd maxay yeelay dhibco laga ma jarin normally kooxaha noocaas oo kale lagu helo dhibco ay lumiyaan balse Chelsea ma lumin taas waxay ka dhigan tahay waleekiiska 115 ee Manchester City oo iyana ah in ay qariyeen lacagaha ay kooxda ku bixinayaan inay ka yimaadeen Sheikh Mansour iyo inay ka yimaadeen kubadda cagta lacagaha kubadda cagta kooxda loo galay waxay yani waxa kooxda ku galan kartaa lacagaha garoonkeeda ka yimaaday lacagaha faa'iido ay sameeyeen ya lacagaha marka lacag ka baxsan barooniga miya mise lacag oo qolyahan siyaasadda ay keeneen waxaas bay qariyeen iyo sponsorship-yada ya iyo waxyaabo badan iyo ciyaartooyga iyo waxyaabo Chelsea in ay sameeyso kale ayaa lacag secret baa jira hadii markii kiiska in lagu helo waxa la tilmaamayaa Chelsea kiiskeeda ayaa Man City caawin doona Chelsea ba hadii Premier League intaas ay ku sameeyaan Man City lama filay ciqaab darin la marsiin doona leer runtii kaliya waa la ganaaxi doona ma jiri doonta leeyahay dhibco in laga jari doono marka waa news u fiican baa leeyahay Man City Chelsea bariga oo raggan hadda oo lagu haysto oo yani waqtiga hadda lagu haysto Chelsea oo hadda la ganaaxay lacagta laga qaaday ciyaaryahanada ay soo gateen Chelsea waxay ka caawiyeen 7 koob oo weyn bay ka caawiyeen waxa ku jiray Matic wuxuu ahaa ciyaaryahan muhiim u ah laba Premier League Chelsea la qaaday League Cup iyo FA Cup ayuu la qaaday kooxda Ramirez ayaa kamid ahaa waa ninkii goolkii caanka ah Barca ka dhaliyay ligta ahaa 2012 Europa League iyo Champions League iyo Premier League iyo FA Cup kooxda la qaaday David Luiz oo kale oo laba jeer blue soo ciyaaray dhaliyay goolkii Champions League finalka 2012 Champions League Premier League Europa League FA Cup kooxda la qaaday nin aad loo jeclaa uu ahaa isna waa nin khatar badnaa uu ahaa in Hazard
kulatan jirnimu kooxda ku yimaaday wuxuu noqday mid kamid ah ciyaaryahan ugu fiican dunida uu noqday ilaa sacuud dambeyn arkay anigu wuxuu leeyahay marka anigu imaanay uu leeyahay Real Madrid anigu ma imaan buu Real Madrid inaan Ronaldo bedelo ya ilaan Ronaldo already ba nin gool badan dhalin jiray buu ahaa anuna hal gool baan ku dhibanay inaan dhaliyo marka aniga waxaan Madrid inaan iska enjoy gareeyo iska baashaalo mooyaane ka Ronaldo aad gashan kartaa iyo Ronaldo buuska bedeli kartaa anigu ma imaan buu waa ninkii meesha markuu tagay ku wareeray waa macnaa oo halaag baa ku qabsaday meeshii waa ku wareeray ninkaas oo kale ku jiray oo Premier League iyo FA Cup iyo laba Premier League FA Cup Liga Cup iyo sidoo kale ku guuleystay buu ahaa iyo abaalmarino kale Andre Charles ku jiray saxda Premier League League Cup la qaaday Eto ku jiray xataa oo hal season kooxda la joogay waxba yani 12 gool kooxda dhaliyay dabaaldegii caan ka sameeyay William oo kale ku jiray madaxdaasha laba Premier League kooxda la qaaday intaasna waa inta arinta waxa laga hadlayay ciyaartoy Newcastle in la bilaqaysan doono oo la kala wadan doono kadib markii la sheegay habeenaweed markii Barca guuldari kuwan ka soo gaartay 8 gool haddana inuu u badnayn Champions League xagga dambe ka soo qayb gali doonaan waxay u badan tahay ciyaaryahanno badan kooxda inay ka tagi doonaan rag badan oo laacibin ayaa meesha inta lagu hayaa iyagoo Isaaq Lumis si kala soo dhaaf haddana ciyaaryahanno muhiim bay luminayaan Premier League sagaalada ka joogaan 7 dhibcood bay ka dambeeyaan booska 5 Champions League looga soo qayb galay 8 ciyaar baharsan marka halis baa jirta haddii marka Newcastle ay soo bixi weyso ciyaartooyga Sandro Tonali Gordon Bruno Guimaraes iyo Livramento inay socdaan baa la arkayaa Man United oo kale Bruno Guimaraes bay doonaysaa Arsenal oo kale Gordon bay doonaysaa Livramento City oo kale waxay doonaysaa Livramento bay doonayaan Madrid Guimaraes bay ina doonayaan 100 milyan ya ayaa lacag ka badan bay ka sameyn karaan nimanka kan xilli saacad ugu dambeeyay xataa ninkan Sisakis wuxuu ku badbaadin karaa waa in ciyaarta derby yani Sunderland ay isla ciyaarayaan derbiga waa inuu badeeyo si season-kooda u badbaadiyo ninkan mar dhaxasta 100 milyan buu ku qiimeysnaa hadda laakiin qiimihiisa kooxda la xaajoon doona waa Bruno Guimaraes marka taas waa taa Barcelona iyo waxa isku imtixaanaan doona Atletico Madrid kadib markii maalin Champions League soo baxeen taas waxay ka dhigan tahay 10 maalmood gudahood nimankan 3 jeer ciyaari doonaan hey asirinkay jiro yaa 10 maalmood ay saddex kulan ka ciyaarayaan fiiri April la Liga ciyaarayaan afartiisa 8 April waxay ciyaarayaan Champions League 14 April waxay ciyaarayaan lug talaada Champions League bay ciyaari doonaan meeshaas waraa jiri doonee wiishka hayeero weeyaan runtii xilli kooxaha kubadda cagta Isbaanarka hadda ay mataqaana yihiin kooxaha hadda dominate gareynaya yani ugu badan kooxaha la Liga waxay macnaha ugu yihiin kooxda ugu badan weeyaan Europe 6 koox bay ku leeyihiin Isbaanishka tartamada Europe oo dhan Europe Champions League Europe League iyo Conference League waa ku ugu badan waa ya reer Spain waa socdaan sanadkan reer Ingiriis waa la aruuriyay 9 camal ay ahaayeen 5 waa galbatay marka taasu waa taa xilli Barcelona sidoo kale kulanka la Liga muhiim u yahay ciyaaryahan ma dhigan karaan labadaas kulan Atletico inay garaacaan waxay rabaan final Arsenal isku arkaan bayran sida u badan tahay fiiri laakiin Barcelona iyo Arsenal waa labada koox si sakan shanta real weyn Europe dhibco ahaan hogaaminay min 70 bay haystaan laakiin Barcelona meesha haysta 3 gool Arsenal Atletico gool bay ka haysataa goal difference-ga meesha ka haysta Barcelona 49 Arsenal 39 bay ka haysataa marka Inter ku sii xigta Bayern Munich Real Madrid ku dhawdo Maxamed dadka u dhibcaha badan bay ku jiraan Man City in lixaad bay ka joogaan Milan 7 bay ka joogaan marka taas waa taa xilli Rafinha yiri markay taageerayaashiina garab istaagsan yihiin oo si waali inoo taageerayaan qaylinayaan sawaxan ay awoorayaan buri way adag tahay impossible weeyaan in anaga garoonkeena lagu garaaco buri macna saacad ugu dambeeyay xilli Courtois la tilmaamayo ugu yaraan ciyaaraha Atletico Mallorca Bayern Girona Bayern hadana Alaves Betis laga yaabay laba lug oo semi final hadii gaareen uu sii kara ilaa iyo Barcelona waraninkan xilli xun buu ka dhacmay laakiin Ludinku waa nin lagu dagaalami karo laakiin Bruno ku aqaana marka lagu dhaawacayo wala meel lagu soo maro macna markii meel lagu soo maray wala yaqaan qof laga dhaawaca adoo fiican laga badi kar laakiin faham markii lagu tumi rabo oo harabtid walaal wal jibina macna waligeedan soo arka jirnay laakiin Arda waa mid kamid ciyaartooydan taageersanay Magic waa Arda Güler waa ninka Aurijanis ugu badan sikan Champions League Sodon waxa arkaysa Arda Güler dadaal meeshu ka gaaray ninka ka dheer ee Haaland oo geelow ah gulaalax gambalax oo inta lagu eegyaal cilna ka war spirit waxaas waa dagaal ya qofku inuu saas u dagaalama Palmer waa looga digay ku beerida kooxda kubadda cagta Manchester United waxa la yiraahdaa Manchester United dad aadid oo ku boos waynaysa Palmer waxa midaas ugu digay ciyaaryahankii hore England Chris Wold waxa uu leeyahay Palmer ma ciyaari doono isbuuc walba haduu ku biiro Manchester United wala saxsan jir khatar badan ninka kan laakiin United buu bariyahanka ay ka haysay magaalada Manchester buu xiisay macnaheedu Holland kuma haysay uu yiri balse ninkan wuxuu leeyahay ninkaas waa laacib Palmer balse اسبوع كاست مان يونايتد بوس كميل جون كلي هرتدو ما كيلي كرتو لين كدبت كجليسا معايا اوريدي بوسكاس من دحو يستاغو ليه برونو فرنانديز iyo كونيا marka problem weyn bay tahay buu leeyahay runtii
halkuu Palmer ka ciyaar lahaa United aado. Fernandes waa kubad sameeye muhiim ah, Cunha waa ciyaaraan dhinac kasta gali kara. Marka Chelsea qudheeda ayuu Constantine kan si joogto ugu ciyaarin. Maxay yeelay mar wuu ciyaaraa, mar wuu nastaa, mar bench wuu ka soo kacaa. Ya mar walba jooska kuwaad ma aha. Siisa kan markaad fiiriso 10 gool u dhaliyay, creativity-giisa ma xuma, 24 ciyaarood. Ya laakiin wuxuu leeyahay Palmer hadduu isku dayo inuu United uu aado waa go'aan isaga u xun. Maxay yeelay halkaas bench buu ka fariisanay baa leeyahay meesha dadka kala joogo. Ninkii waa ka dhaawacan yahay James xilin wuxuu ka dhaawacmay 22 dhaawaciisa ku laatanaad baa soo gaaray maalin dhaweey tan markuu Chelsea u saftay safashiisa ugu horeeyay 703 maalmood ninkan garoomada ka maqnaa. Ninkan Neymar walaaleyda dhaawac la waa isbitaalay waa 136 game ka badan uu seegay. Ya tababarihii Italy waa ilaalin jiray ninkan dad isbuuc kasta ciyaarsiin jiray kana iska ciyaarsiin oo okiyaal maalin walba. Taas waa taa Maxamed Salah waa la xaqiijiyay inuu ciyaarin isbuucan dhaawaciisa soo gaaray Brighton. Marka Maxamed wuu joogi doona xataa xulkiisa ma aadi doono. Marka waa kan United waxay yiraahdeen Barcelona 30 milyan bixiya ima ninka ciyaaryahanka noo soo celiya. Man United waa kibirti waxay arkeen Rashford inaad ku waalantiin arkeen ya Rashford waa Aston Villa iska laabo walaalo anigu ku jiidi karnay waxay aragtay idinka inaad iska jeceshiin Rashford uu ku dhacay 30 bixiya ama ii soo celi ciyaartooyda. Barcelona waxay rabtay macnaha please qayb hadda bixinayna ayuu tacamul qaybta marka la bixinayna maya ii soo celi algu ka war Rashford halan baraysa mo la Barcelona goorma arki doona meeshiyo dib wada dhisantayo kooxda lacagta saas u farinaysa mar kale ya waka kana badi ku ficnaan lahayd Greenwood Juventus u socda ninkan aniga Barcelona kan ugu baaqi lahaaba hadaan xaga dambe wariyahan soo wadan hadaan Lampard warkiisan ka fahmay Harry Kane lacag ku dhumin rabo halan hadda ma heli karo Alvarez wuxuu dhahay daraad lacagtooda badan tahay adiga Atletico soo bushgaray ka soo xanaaji si aan lacag hor oo normal ku qaadano. Marka waxaan dareemaa ninkaas wax ma soo wadiyo laakiin xataa Greenwood kale jacbur fiican uu galaa jacbur Greenwood balaayo waade Greenwood Juventus baa doonaysa 4 milyan ku qiimeysan yahay 30 geeb dhiibayn kuwan Manchester. Okay wal akhri macnaha waa la basrina baasha Juventus marka ninkan xaqa dambe ninkan qaataan bay doonayaan. maxay ninkan siisa ka mataqaan muxuu sameeyay 25 gool u dhalay 8 buuna caawiyay 8 ciyaar Faranska isma ulaysa walaal Messi dhaqaaq waan ku uri Abron space ku qaatay way saan jug lisina 25 laga haystaa ninka oo Faransiiska soo baxay xoraalkiisa oo jeeniga weyn meel kasta waa ka soconaa 8 caawin ya 8 ciyaarood marka waka xilli horyaalka Messi la soo warinayo in hadda kadib umada ku soo darsoomayaan horyaalkeena Soomaaliya umada ku soo darsooma horyaalkeena umada ku soo darsoobisna saacad oo waxa la ciyaara oo fahmina la ciyaara moogtahay January agteeda la ciyaara siisaka dhaxo muraadi hada horyaalkan oo MLS-ka waxa la iska bilaabana March bilaabana iyo February dhamaadkeeda la bilaabana hadda waxay yiraahdeen Mareykan oo qoryaalay wadiya aw wuxuu dhaw umadan soo biir aniga Yurub amal iska dhiga oo maxay Yurub maxay sameeyaan Yurub waxay sameeyaan kubadda cagta waxa la bilaaba maxardaay August ilaa May ayaa la ciyaaraa marka saas uu leeyahay anina saasan sameeyna uu leeyahay ninka la yiraahdo Mareykan umadan ku soo darsooma marka hadda MLS waxa la ciyaara February iyo November waa la dhameeyna markii horyaalada Yurub ay qaybta dhaxad la bilaaban ramaan al dhameeyno macna November February way bilowdaan hadda bishan hadda way bilowdeen marka wax weeyaan hadda laakiin systemka wax weeyaan waa la hagaajin doonaa runtii waxa laga dhigayaa systemkii caadiga Yurub baa laga dhigayaa waxay la bilaabanayaan ciyaaraha Yurub oo kale Agosto waxayna dhamaanayaan May midda kale Firmino wuxuu waa ceeb buuri in finalissima aan la ciyaarin oo la kansalo waxaan rabay Messi inaan la ka hor imaado Firmino waa mid kale ciyaartooyga ugu jecel Bernardo uu kamid yahay ee xariifiinta ah ee laacibiinta ah oo aan ka shakinayn waa ayuu kamid yahay waana ninka noqday qadka dhexe ugu lug lahaansho gool badan siisakan tartamada oo dhan siisakan qad dhexe ninkan ka gool badan ma jiraba Firmino kale qad dhexe noocaas in ayaantan heshiismaba heleysba waxa uu haystaa siisakan ninka kan all competition wuxuu haystaa 12 gool iyo 16 caawin la haystaa 28 gool ku leeyahay wax weeyaan Firmino qadka dhexe ee ku lug goolasho ugu badan kubadda cagta oo dhan waa season kano Europe oo dhan tartamada oo idil marka waa ka xumay Messi aan ka hor imaanin Ronaldo loogama wicin xulka Portugal xogaa si fiican u soo kaba laga wadaa Talyaaniga waxa weeyaan waxa laga soo warinayaa Allegri macalinka Milan wuxuu yiri Modric arintiisa kama hadli karo iminku heshiiska June u dhacaya marka wajaclaan lahayn Burluko Madrid inuu la joogo Milan Modric cadan tuugaysa walaakiin khatar waade Chiesa ugu dambeyntii Gattuso oo waa xulka Talyaaniga maxay muhiim waa
ciyaarahan dhedhela la ciyaaro hadda ingiriis iyo argentin iyo portugal baashaal ciyaaroyin laakiin dadkan balo of ciyaaroyin nag awd ciyaaroyin labadii world cup la soo dhaafin meeshan ay ku hareen talyaani nag awd kan ay ku hareen hadda waa loo wacay keesa maxaa qabanaya adiga baalid xulam taqana aniga ha igu cinin no liverpool isku dhigaalina keed leeyo ka yahay aruuxal rimeeshis wax ma ka hayside kaal xulka ugu ciyaar rimina waa la wacay dhowr maran kadib wuxuu taqaan dhowr maran kees waa ciyaaraniga wuxuu ilaahay liverpool xooga saara warida kaas kuma raba la kaal xulka ciyaar marka waa loo wacay saacad ugu dambeeyay Italia ma anaga ciyaar kala u socdo kuwana bijuuday laba world cup bay hareen saanan u fiirsada laba koob hareen kii saddexaad haday haraan azur baa lagu kala tago waa Chiesa iyo Esposito iyo Keane iyo Politano iyo Raspadori iyo Retugi iyo Scamacca ayaa ciyaari doona weerarka Barella iyo Christensen iyo Verratti iyo Locatelli iyo Tonali iyo ciyaaraya meesha dhexda Bastoni iyo Calviori iyo Mancini iyo Gatti iyo Spinazzola iyo waa difaaca dan Roma iyo goolka qayb ayaa ku jira runtii raga la wacay marka Azuri waa ka England Arnold baa laga tagay mar kale tawmaalid wuxuu la mataqana tababaraha Madrid war Arnold loo wacuri wacdaro fiican buu la qaadanaya inaga tababaraha Ingiriis wuxuu yiri aniga waxaan ku haystaa wuri ma wacine waxaan ku haystaa wuri oon ku dhignaanaya go'aankayga inaan waco Quensa iyo Spencer iyo Livermento arrinka ku dhagaya aniga kan waa arki doona hadii ultim loo wici doono ugu dambeyntii Uruguay iyo Japan bay isla baashaali doonaan ciyaaraha ragan baana loo xushay weerar dhex England xaalkooda waa ka waa asxaabtay nabadgelyo